ورحمة الله وبركاته ولا الكسود جالسنا أكاديمي أكاديمية يوتيوب كذا مقالكم waxaan kugu tusaynaa sidee ayaa shirkadda suuqa albaab wax ku iibinaysa inay tahay shirkad sax ah in kala loo hubiyaa marka aad doonayso in albaab wax ka iibsato dabcan shirkado kala duwan baa wax ku iibiya kuwa run ah oo sax ah oo suuqa xaqiijina way jiraan kuwa marka suuqa uu xaqiijin oo tuugaana way jiraan marka sidee loo hubiyaa shirkadda saxda loo doortaa tusaale marka suuqa albaab aad soo gasho kale halka aad ku qorto waxaan raadinaynaa ka soo qaado waxa aan doonayno alaab kale kabaan haddaan hadda shoes ku dhufto oo aan idhaahdo kabaan raadinaya halka wuxuu ku soo saaraya shirkado kala duwan waxaad ku garanaysaa marka shirkadu inay tahay mid sax ah iyo inaysan ahayn tii saxda ahayd waxaad ku garanaysaa shirkadda saxda ah waxay wadataa calaamad buluug ah magaceeda horteeda waxa ku qoran calaamad buluug ah ayaa ku qoran oo ah verified waa la xaqiijiyay shirkad sax ah weeye ayaa ku qoran tusaale hadda ku dhufto ka soo qaad shirkadda kabahan iibinayso kala hadaan ku dhufano aan hoos u baxno meesha magaceedu ku qoran yahay tagana xagga hoose hadda waa arta shirkaddan magaceedu meeshu ku qoran yahay waxa la yiraahdo hal sano ay jirtaa laakiin calaamadii buluug ahayn ma wadato marka shirkadda shirkad sax ma ah marka si aan isaga ilaaliyo shirkadaha tuugada waxaan sameeynaya marka aad shayga aad doonayso meesha aad ku qorto xaggan hoose wax ku qoran yihiin tusaale sida local stock Alibaba guarantee certification meesha ku qoran yihiin halka waxaad ka baadhaa meel ay ku qoran tahay verified supplier meel ku qoran tahay ka bar verified supplier meesha markaad ku dhufato wuxuu ku soo saaraya kaliya shirkadaha suuqan oo ruqsadda siiyay ee saxda ah ku soo saaraya marka alaabta aad raadinaysa iibinaya hada kulli fiir shirkadahan maxaa ku wada qoran calaamada buluug ahayd soo verified ba ku qoran marka waa shirkad suuqa Alibaba isagu hubiyay xarunteedii uu tagay alaabteena hayso uu hubiyay marka shirkad suuq uu si sax ah uga shaqeysa weeye oo iyagu alaabtii hayso oo shirkadii ama manufacturer alaabta soo saarayay ah marka dad halka ay kulli maarta verified ba ku wada qoran waxyaabo kale oo la iska eego waxa kamid ah shirkad inta sano ay jirto iyadoo ku anfacaysa maadaama shirkadu hadii muddo badan jirto waa shirkad dabcan khibrad leh weeye marka iyada laftigeedu waxyaabo lagu doortay kamid ah hadda tusaale shirkadu ka hadda soo qaataday waa verified supplier 12 sano shaqeynaysa sida halka kaga muuqata lacagta ay soo saardo wada fiirin ka online revenue dakhliga online ka ka hesho 180,000 in ka badan bay online ka hesho halka waxa dareemi kara inay tahay shirkad aad iyo aad runtii u weyn halka fiiri waxa la eegi kartaa inta shaqaale u shaqeeyo 24 qof oo u shaqeeyo total staffka marka sidaas ayaad ku hubin kartaa shirkadda saxda ah inay tahay shirkadii saxda ahayd iyo inay tahay shirkad markaa feega aad iyo aad baa u mahadsan tahay haddii aad YouTube ku cusub tahay waxaan kaga hadalnaa YouTube-ka sidee loo sameeyaa marka waxyaabaha teknolojiyadda la xiriira iyo waxyaabaha ganacsiga la xiriira ayaan kusoo bandhignaa haddii aad ku qanacday muuqaalkan waxaan ka codsanayaa inaad noo saarto subscribe mar labaad mar saddexaad ba soo dhawo